tobankii bishii Oktoobar sanadkii tagay ee 2016 ayay ahayd markii dhalinyaro aqoon-yahano ah inta isku tageen asaaseen barnaamij loogu magac daray ku celi waxaad baratay dhulkaaga hooyo. barnaamijkan ayaa waxa uu noqday mid ujeedkii loo asaasay laga helay iyadoo muddadaasi kooban gudaheeda ay tababaro kala duwan ka heleen arday dhan 150 iskugu jiray wiilal iyo gabdho sida uu qeexayo Cabdirasaaq Axmed Jaamac Wadani oo ah gudoomiyaha barnaamijkan. runtii barnaamijku ku celi waxa bartay dhulkaaga hooyo wuxuu shaqeynayay muddo gaaraysa 3 bilood wuxuuna tababaray ku dhawaad arday gaaraysa 100 arday. waan ku faraxsanahay inaanu intaan qabanno annagoo 3 bilood jirnay. waxa inta dheer barnaamijku wuxuu fuliyay wacyigelin deegaan taasoo la xiriirta taariibta iyo dhibaatooyinka ka jira deegaanka ha noqoto mid ammaan ama ha noqoto mid deegaanka korkiisa lagu hayo. runtii waxa farxadii ah inaan arkayo jiil badan oo soo koraya oo jaamacada dhiganaya iskuul dhiganaya sanad diyaar u ah inay waxay garanayaan dalkooda dib ugu celiyaan. mas'uuliyiin ka soo qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay halka uu hiigsanayo barnaamijka ayaa si diiran u bogaadiyay dhalinyarada hormuudka u ah barnaamijka waxaad baratay ku celi dhulkaaga hooyo kuwaas oo ay horkacayaan gudoomiyaha barnaamijka Cabdirasaaq Wadani iyo Xasan Cabdalla Baasha oo ah madaxa saxaafadda ururkaasi. fadhido waxaana ku faraxsanahay maanta inaad barnaamij sameysaan ku celi wadankaaga waxaad baratay. ku celi wadankaaga waxaad baratay waxay ila tahay wax badan inay xambaarsan tahay. ku celi dalkaaga hooyo waxaad baratay runtii ah wax badan baa loo baahan yahay dalka in lagu celiyo oo waxbarashada kaliya maaha laakiin waxyaabo badan baa la rabaa dalka in lagu celiyo xoogga lagu celiyo lacagta lagu celiyo wax badan lagu celiyo laakiin dhalinyaradu waxaad moodaa meeshii ugu muhiimsanayd oo waxbarashada ahayd ama aqoonta ahayd inay ka soo qaateen hadda aqoontuna waa furaha wax kasta. marka biidin illaahi tacaala shirkan waxaa weeye aw macruufin macruuf la isfarayo wax wanaagsan in ummadda loo qabto laga tashanayo la isku dhiirigelinayo ilaahay hanoo aqbalo subxaanahu wa tacaala. wasiirkii hore ee duulista hawada Siciid Qorsheel ayaa ka sheekeeyay barnaamijkan iyo muhiimadda uu bulshada qaasatan dhalinyarada u leeyahay. macna weyn bay samaysay badanaa manayhi dadka xafladaha iyo meelaha ku soo dheereeya laakiin waxaan gartay wax aad u qiimo badan yihiin. marka runtii waxaan rabaa labada dhalinyarada oo aan filayo ninkan odayga iyo ninkan odayga daan magacoodan garanay waxaan leeyahay kullu waa la isbaran doonaa. aad baan u ajiibay waxaan u ajiibay amniman dhalinyaro oo wax gartay oo aragti fiican leh oo runtii hiiliho u baahan inay yihiin Soomaalina meelaha ay ka liidato ay marka yara taabteen. dhalinyarada barnaamijkan asaasay oo dalka dibadiisa wax ku soo bartay ayaa ku fakaraya in ay aqoontooda dib ugu celiyaan dalkooda hooyo iyadoo hadafkaasi qayb ka mid ah la arkay. gabagabadii munaasabadda ayaa qaar ka mid ah shakhsiyaadkii barnaamijkan dhiirigeliyay hiil iyo hoona la garab istaagay muddada uu jiray la guddoonsiiyey shahaado sharaf ay mutaysteen. Maxamuud Cabdinaasir Maxamed, TV-ga Jubbaland, Garowe.